السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد والاليال برنامج aynu ku eegi doono saddex haweena oo caalamka islaamka ka yaabiyay sidii ay khayrka u jeclaayeen adduunyada intaada nooshahay waxaad arkaysaa waxyaalo ka yaabiya ha ahaadaan arrimo wanaagsan ama haba noqdaan kuwa laga fiican yahaybe balse markaad fiiriso jiilkii hore ee ummadda islaamka waxaad isdhahaysaa talow qoomkaasi ma waxay ku noolaayeen meere kale oo aan dhulkan ahayn haddaba balila wadaag qisadan saddexda gabdhood ee caalamka islaamka kaga yaabiyey siday khayrka u jeclaayeen qisada koowaad daxdaax markii ay soo degtay aayadan man dha alladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan katiira kiineeba amaahinaya ilaahay ammaah wanaagsan oo ilaahayna u laablaabid fara badan aayadan waxaa maqalay saxaabigii abudaxdaax oo nebiga sala allahu calayhi wasallam agtiisa fadhiyey markaasuu dhahay rasuulka ilaahayow oo ilaahay ma ammaah ayuu ina weydiisanayaa wuxuu dhahay nebigu sala allahu calayhi wasallam haa abudaxdaaxow wuxuu yidhi ii dhiib gacantaada rasuulka ilaahayow waana u dhiibay nebigu gacantiisii markaasuu yidhi abudaxdaax waxaan beertayda ammaahiyey rabbigay abudaxdaaxna beertiisa waxaa ku yaalay 600 oo geed timireeda waa qof maanta u dhigmaya milyaneer subxaan allah beertana waxaa degganayd xaaskiisii daxdaax iyo carruurtiisii kadibna abudaxdaax wuxuu u yimi beertiisii wuxuuna ku dhahay haweenaydiisii daxdaaxey ka soo bax beerta waxaana maahiyey rabbigay markaasay tidhi daxdaax wuu guulaystay ganacsigaagii daxdaax ilaahay raalliha ka ahaadee waxay si dhab ah u ogayd in ganacsiga lala geliyo ilaahay uu yahay mid lagu guulaysanayo sidaa awgeed markii ay maqashayba waxay ku dhawaaqday wuu guulaystay ganacsigaagii ayadoo ku dhiirigelinaysa oo ku goobaabinaysa ninkeeda khayrka qisada labaad xaaskii julaybiib ilaahay raalliha ka ahaadee wuxuu ahaa nin madow oo foolxun wuxuuna ahaa nin dooba oo aan weli guursanin kadibna rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasallam ayaa u doonay gabadh reer ansaareeda gabadha aabbaheed wuxuu yidhi waan kaaga farxad gelinaynaa rasuulka ilaahayow oo waannu ku siinaynaa inanta balse wuxuu dhahay nebigu anigu ma guursanaayo ee julaybiib ayaa guursanaya gabadha wuxuu dhahay ninkii gabadha hooyadeed ayaan soo weydiinayaa aragtideeda waanu weydiiyey waxayna tidhi gabadhii ma julaybiib ayaa guursanaya inantayda ilaah baan ku dhaartay guursan maayo markuu ninkii doonay inuu kaco ayaa gabadhii waxay tidhi yaa i soo doonay waxay dhaheen rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasallam ayaa doonaya inaad guursato ninka la dhaho julaybiib waxay tidhi gabadhii oo ma rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasallam ayaad amarkiisa ku celinaysaan ii geeya ima dayacayo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasallam kadibna aabbaheed ayaa warkii wuxuu u sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasallam waana loo guuriyey gabadhii ninkii la dhihi jiray julaybiib radia allahu canhuma dabadeedna rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasallam ayaa duulaan u baxay markuu dagaalkii dhammaaday wuxuu yidhi saxaabadiisii isagoo la hadlaaya yaa weysan tihidin saxaabadaydiyey waxay dhaheen hebel iyo hebel wuxuu dhahay nebigu yaa kale oo aad weydeen waxay dhaheen cidnaba wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasallam aniguse waxaan weysanahay julaybiib aaway julaybiib mee waa la raadiyey ninkii julaybiib ahaa waxaana la helay isagoo 7 gaalo ah dilay isagiina ay dileen markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi wuxuu dilay 7 isagiina way dileen kani aniga ayuu iga ahaaday aniguna isagaan ka ahaaday wuxuuna nebigu saaray madaxiisa dhabtiisa ilaa maa laga aasiyey lamana maydhin maydkiisii xaaskii julaybiib ayaa waxay noqotay haweenka ugu xoolaha badan magaalada madiina oo sidoo kalena ah kuwa markaa ugu waxbixinta fara badan ma ogtahay haddaba haweenaydaas wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam ugu duceeyey markii ay guursatay julaybiib wuxuu dhahay nebigu allaahumma subba calayha alkhayra sabbaa
ولا تجعل عيشها كدا كدا إلهي وحاك كشبتا كركيدا خير شبس هنكيل النلوشيد متكديد أردبان إلهينا سبحانه وتعالى وحوك أقبل دعاء رسول كيس صلى الله عليه وسلم وحين هوين داسي نقطي هوين مالقبينا ووحا قرسدي صحابة يقوى وين الصحابة رسولك رضوان الله عليهم كدم مركي أي فليسي أمركي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قصة صدحات حاسكي أبو الهيثم بن تيهان maalin ayaa waxa soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam mise waxa ka horiyimi ba Abu Bakar radiyallahu anhu markaasuu dhahay rasuulku maxaa ku soo bixiyay Abu Bakar wuxuu dhahay rasuulki Ilaahay oo gaajo ayaa soo saartay kadibna waxa uu yimi Umar ibn Khattab markaasuu dhahay nabigu maxaa ku soo bixiyay Umar ibn Khattab wuxuu dhahay nabigi Ilaahay oo gaajo ayaa soo saartay markaasuu nabigiina wuxuu dhahay anigana ilaah baan ku dhaartay waxay soo saartay gaajo dabadeedna saddexdoodii oo wada socda ayaa waxay u tageen saxaabi reer ansaareed ah gurigiisii saxaabigaasna wuxuu ahaa Abul Haytham ibn Tayhan saxaabigaasna wuxuu lahaa beer weyn iyo ari fara badan waxaana albaabkii ka furtay xaaskii Abul Haytham ibn Tayhan waxayna dhaheen mee ninkii Abul Haytham ahaa waxay tidhi rasuulki Ilaahay wuu baxay si uu biyo noogu soo dhaamiyo halkiiba wax yar kumay nagaaninba mise waxaaba yimi Abul Haytham ibn Tayhan markaasuu yidhi Ilaahay baa mahadda iskale maanta ma waxa ila jooga martitii ugu wanaagsanayd kadibna gogol ayuu u fidiyey geed hoostii wuxuuna u keenay timir noocyo kala duwan ah waanu kala dooran siiyey markaasuu dhahay nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaah baan ku dhaartee waa hadh ama hoos qabow timir wanaagsan iyo biyo qabow waa nicmada laydin weydiinayo Abul Haytham ilaahay raalli ha ka ahaadee wuxuu u tegay adhigiisii isagoo raba inuu gowraco neef shilis oo buuran balse rasuulkii baa wuxuu ku dhahay ha gowricin neef dararsan oo caana leh kadibna wuxuu qalay ceesaan wuxuuna hilibkii u keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saxaabiye Abu Bakar iyo Umar radiyallahu anhuma wayna cuneen oo way dhargeen markaasuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay ninkii Abul Haytham ahaa cid ku adeegta ma haysataa wuxuu yidhi maya rasuulki Ilaahayow wuxuu dhahay nabigu ii kaalay marka ugu horraysa ee maxaabiis ay timaado kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi laba nin oo addoommo ahaa markaasuu u yeedhay Abul Haytham ibn Tayhan wuxuuna ku dhahay labada nin kala dooro dabadeedna wuxuu dhahay ninkii Abul Haytham ahaa adigu ii door rasuulki Ilaahayow wuxuu dhahay nabigu ruuxa lala tashado waa mid la aaminay ee kan qaado sababtoo ah wuu tukadaa salaad wanaagsan ulana dhaqan si wanaagsan Abul Haytham waa soo baxay wuxuuna warkii u sheegay xaaskiisii markaasay waxay tidhi ma dhammaystiraysid wixii rasuulku uu ku dardaarmay ilaa ma aad ka xoreynaysid ninkan addoonka ah kadibna ninkii Abul Haytham ahaa wuxuu dhahay xor baad u tahay wejiga Ilaahay markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam maqlay warka gabadhaas ayaa wuxuu yidhi ma jiro nebi la soo diro ama khaliif hadduuba jiraba wuxuu leeyahay laba saaxiib hoose oo midkood uu faro wanaaga kana reebo xumaanta halka kan kalena uu ka gabood falayo ciddii laga ilaaliyo saaxiibada hoose ee xunxun kaas ayaa dhowrsoon ayuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaa cajiiba qaabka haweenayda saalixadda ahi ay u hirgelisay fariintii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay welibana ugu boorisay odaygeedii ama ay ku goobaabisay khayrka oo ay fartay inuu xoreeyo addoonkii فسبحان الله بنو لنهي وعجائبك أي معجزوينك هوينك إسلامك غارهان الدمركي مسلماتك نولا أمتا إسلامك عهدي جيدي هوري أن إنتانا كسو كوبنو صدح دي هوين عالمك إسلامك كغيا بيسيدي آيا خيرك وجعلايين تينوكو كل مدونا برنامج كينانك كلنا وحاني دي كغتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته